wasiirka wasaaradda xidhka golayaasha iyo arrimaha dastuurka Somaliland uu weheliyo agaasimaha guud ee wasaaradda xidhka golayaasha ayaa maanta xarunta barashada wadaniyadda ee wasaaraddaasi ka furay barnaamijka Daljir oo ah tartan aqooneed lagu baran doono wadaniyadda iyo dastuurka. waxaana barnaamijkan loogu talagalay in lagu horumariyo aqoonta, xirfadaha iyo fahamka dhalinyarada ee ku saabsan dastuurka iyo wadaniyadda, kaasoo xoogga saari doona inay muwaadiniintu si qoto dheer u fahmaan xuquuqdooda, waajibaadkooda iyo sidoo kale sida ay tahay in loo ilaaliyo qarannimada iyo nidaamka sharciga dalka. ugu horreyn waxaa madashaasi ka hadlay agaasimayaasha xarunta wadaniyadda iyo agaasimaha waaxda dastuurka, macallimiin iyo aqoon-yahan kale, waxaanay ku dheeraadeen islamarkaana faahfaahin ka bixiyeen ujeeddada tababarkani. agaasimaha guud ee wasaaradda xidhka golayaasha arrimaha dastuurka Somaliland oo isna ka hadlay furitaanka tartankaasi ayaa sharaxaad ballaadhan ka bixiyey muhiimadda ay barnaamijkani u leeyahay dhalinyarada iyo guud ahaanba qaybaha kala duwan ee bulshada. ugu dambeyn, wasiirka wasaaradda xidhka golayaasha iyo arrimaha dastuurka Somaliland Axmed Awdaahir Xaaji Xasan ayaa ka hadlay ujeeddada barnaamijkani, isagoo sidoo kalena sheegay in barnaamijkani sii socon doono ilaa 19 bisha la gaadhayo. waxaynu furan doonaa barnaamijka Daljir oo runtii ah barnaamij cusub oo wasaaraddu ay daha furi doonto oo barnaamijyada wadaniyadda iyo dastuurka iyo horumarinta dawladnimada iyo dimuqraadiyadda insha Allah taala kor loogu qaadi doono. barnaamijkaas oo ah barnaamij ay wasaaraddu ugu talagashay in bulshada lagu gaarsiiyo dastuurka, wadaniyadda iyo horumarinta dawladnimada iyo fahamka iyo xoojinta bulshada fahamkooda in la xoojiyo wadaniyadda. barnaamijka waxaan ku furaynaa marka tartanka aqooneedka wadaniyadda iyo dastuurka. runtii dhalinyarada labada maanta urur ee halkan fadhiya midig iyo bidix kala joogta ah dhalinyarada runtii xarunta ku xiran maanta 8 urur ayaa oo ah ururada ka shaqeeya arrimaha bulshada iyo wadaniyadda. runtii xaruntana wax ka bartay sidoo kalena si mutadawacnimo u sameeyay ururada bulshada ay dadka ku caawinayaan ama ay bulshadooda si volunteer ugu shaqeynayaan. aniga agaasimaha xarunta dastuurka Cabdirasaaq baa isla eegnay bal barnaamijkan ku bedeli karna marka waxaan isla eegnay marka aan isla garanay inay jiraan dhalinyaro mutadawiciin oo horena dastuurka iyo wadaniyadda u qaatay oo ka shaqeeya qaybaha kala duwan ee bulshada oo mutadawiciin in dadkii la heli karo maadaama ay urur yihiin in iyagana tartan loo qabto si aqoon kororsi iyo wacyigelin iyo abaalmarin buu noqoto in iyaguna qayb ka noqdaan barnaamijyada tartanka bisha Ramadaan iyadoo Ramadaan walba laga fikiri doono maxaa cusub in soo kordhin karnaa. sidaas uu barnaamijkaas horta ku yimiday tartan baalkan ka dhici doona sida hore loo sheegay 8 kooxooda Israa'iil bay geli doonaan aakhirka laba isku soo hadhi doona labadaas finalka isku iman doona markaa inta muddadaas socoto ilaa iyo 9 bisha ayuu socon doonaa. maanta daafurka iyo bafurkii baynu u joognaa. cid kasta oo ka soo qayb qaadatay barnaamijkan baan aad ugu mahadnaqayaa oo agaasimaha guudka uu ka yahay oo macallin bedel oo aad ugu mahadnaqayo oo aad maadartay nooga qayb qaatay waayo shaygu markuu cusub yahay waxa laga yaabaa Ramadaan dambe ku celiya hadaan idhaahno wadada in marno laakiin markuu cusub yahay jaranjarooyin fara badan buu marayaa. macallin bedel alla khayraas iyo isaguna aad buu noogala shaqeeyay. marka waxaan leeyahay guul fiican baan idin rajaynayaa idinkii kuwa idinka dambeeyaba. bismillaahi raxmaani raxiim wabihi nastaciinu calaa umuuri dunya waddiin wasalaatu wasalaamu calaa sayidina wa nabiyina muxammadin sallallahu alayhi wasallam. dhammaantiin waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka. assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. waxaynu ku jiraa bil barakaysan oo aynaan cibaado mooye wax kala qabanin inta badan. ilaahayna waxaanu ka baryaynaa in ilaahay naga aqbalo soonta iyo salaada iyo camal kastoo wanaagsan oo aynu samaynayno. allah naga aqbalo dalkeenana ilaahay meel kasta nabad ha inooga dhigo. intaa kadib barnaamijkan ama tartan aqooneedkan ay soo qaban qaabisay wasaaradda xiriirka golayaasha iyo arrimaha dastuurku wuxuu xambaarsan yahay dhiirigelin iyo aqoon labadaba. dhalinyarada ama ardayda halkan ku tartamaysaa waxay ka kala yimaadeen degmooyinka magaalada Hargeysa. marka hore idinka isbaranaya sidaan isleeyahay oo intiina halkan wada fadhida
inaydaan hore u kulmin baa laga yaabaa marka kulankaasi wuxuu leeyahay xamaasad gaar ah waa isdhexgelaysaan waa isbaranaysaan waxa kale oo ka faa'iidaysaan halkan aqoon iyo waayo aragnimo laba qaybood buu ka kooban yahay barnaamijku waa wadaniyadda iyo dastuurka oo ah shuruucda dalka lagu maamulo marka qofku waxa muhiim ah horta inuu barto sharciga dalkan lagu maamulayo haddii marka adiga masalan lagu xidho sifo kastaba ha lagugu xidhee waa inaad taqaanaa wixii aad isku difaaci lahayd haddaad xuquuqdaada doonayso waa inaad taqaanaa halkaad u marayso guud ahaan haybadda guud ee dalkan iyo qaranka waa inaad taqaanaa awoodaha sida loo kala leeyahay marka wax badan baad halkan ka baran doontaan wax badanna waa laydiin soo dhigay barnaamijkan ujeeddada ugu weyn aan ka leenahay waxa weeyaan dadku inay ku bartaan dowladnimada shuruucda dalka sidoo kalena ay ku bartaan maxay mas'uuliyaadka ka saaran qarankooda ee waajib tahay inay gutaan muhiimaduna ama ka dambaysaana waxa weeyaan qofka muwaadinkii inuu aamini karo inuu ilaaliyey qarankiisu isla markaana uu fahmi karayo halka uu doonanayo xaqiisa aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa gaar ahaan kooxaha wadaniyadda iyo arrimaha barashada dastuurka muddo ku soo jiray oo labada kooxood ee ugu horreeyay maanta halkan tartanku ka qaybgalayo sidaa uu sheegay aqoon-yahan bedel waad wada guulaysan doontaan waxaan rajayn doonaa insha allah billahi kariim in barnaamijyo badan ood idinku hogaaminaysaan barnaamijyadu waxay yeelan doonaan heerar kala duwan wax marxalada ay xaruntu hogaamiso marxalada ay hogaamiyaan unugyada ama kooxaha degmooyinka iyo xaafaduhu ay hogaamiyaan oo tartankan oo kale ah marka runtii waxaan rajaynayaa barnaamijkani inuu qaybo badan sidoo kale yeesho oo kala duwan oo hal-abuur leh oo tartan leh markaa soo dhowaada barnaamijku inoo furan yahay waynu wada joognaa insha allah ilaa 9 iyo 10 bisha waxaana rajaynayaa guul baan idin wada rajaynayaa dhammaantiin kooxun baana nambarka koobaad gali doonta laakiin waynu wada guulaysan doonaa insha allah billahi kariim barnaamijkan sidaa la sheegay waa barnaamij aqoon isweydaarsiya oo wasaaraddu ay qabatay oo loogu talagalay in ururada iyo bulshada qaybaheeda ka duwan ay loo sameeyo golayaal iyo haddana qadarkeena meel golayaal ay ku tartamaan tartanku wuxuu hadii jaraale keenaa saad la socotaan in aqoonta iyo haddana qadarkeeda leeyahay ay wax kasta ay kordhaan sababtoo ah dee waa la tartamayaa oo waxa weeyaan qolay rabtaa inay maaragtay ay kaalinta koowaad iyo muddooyinka ay ka hesho waa hadii jira tartanku waxyaalaha kobciya wax kasta oo la uriyay oo aqoontu ay ka mid tahay marka sidaa la sheegay barnaamijkan wuu soconayaa waana barnaamij loogu talagalay bisha Ramadaan oo ay wasaaraddu maalgelisay waxaan rajaynaynaa insha Allah bismillaahil kariim marba marka ka dambaysa inuu ka sii cuslaado oo ka sii koro inta uu ilaa iyo heerkii la doonaya gaarayna wuu socon doonaa insha Allah bismillaahil kariim caasimada quraan ahaan maayo ilaa gobolada iyo wadanka guud ahaan waa lagu qaban doonaa waana loo gudbin doonaa waxa loo baahan yahay marka dhalinyarada lagu tababaray ama loo dhigay arrimaha wadaniyadda iyo dastuurka in ay runtii ay dadaal badan muujiyaan waxa kale oo ogtihiin dee marka la tartamo waxa la bixiyaa jaayisooyin baa la bixiyaa jaayisooyinka laftoodu dee waxa weeyaan ciddii hawlkarnimo muujisay ee dadaashay ee imtixaanka meel wacan iyo tartanka meel wacan ka gaadho unbaa hadda jeer ku guulaysataa waxaan filayaa waxa loo tartamayaana inay taa noqon doonto oo aad dadaali doontaan marka
saasuu barnaamijku de kolley inoogu furan yahay wuuna inoo socon doona haddii ilaahay idinka ka dhigo cidda maanta badisaanaya isdhigan